ayaana warka ku dheeraanin waxyaalo badan oo la sheegi lahaa horaa loo sheegay aan markaa kugu soo dhaweeyo si waajibkaaga iyo codkaaga aad u dhiibiso ummadaadan aad u hanuuniso mudana madaxweyne ku soo dhawow ahlan wasahlan بسم الله الرحمن الرحيم مدن قدومي قولها وزير هذا قولها لبدا أقل تليها عيدك البوليسكا قدوميها قبل كبنادر كوحدة بامبيدا فلانينتا هولدا وبري هالوضينا وزارة هي شقالها إذا عدى راديو مقدشو يو صومال ناشونال تي في. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا محله عليه سورة قليي إن عاوة هالكن سوي مانو وأن أدبال دقنو سنة قولدي لحدني الحاد كسو وركتي أساسكي راديو مقدشو وحان ربا إن أمهد عليو هالوضينا السوق بنقابيي مناسبة روح البدل وحن ربا إن سيجارة أنا أمهد عليو سراكيشة حافظي كيتكا راديو مقدشو حلقي بربركا يدقال كسوكية حتى وحنا قلت جوجا كورنيل أبشر حاشي علي هدوها كان جوجو هل كان نوي مال وصعبية تفضل. ما شاء الله انت بدل waxaan ka hadalnaa waxyaabaha runtii lagu reebay dhibaatada kama hadalno umana mahad celino dadka wanaagsan oo sida Colonel Abshir oo kale oo runtii geystay xafiday kaydiyay wixii la aruunayay ilaa 1951 oo isugu jira wax alla wixii murti ahayd wax alla wixii heesa ahaa wax alla wixii gabay ahaa wax alla wixii taariikhda Soomaalida qodbooyinkii madaxdii la soo martay wax alla wixii maxaan iraahdaa taariikhda Soomaaliyeed oo idil runtii Abshir waxaan Ilaahay uga baryanaa caafimaad iyo cimri dheer annagana waa inaan xasuusnaano hawshii iyo wuxuu soo qabtay qof walba oo runtii wax geysta wanaag geystana waxa loo baahan yahay mar walba inaan siino abaalkiisa iyo mudnaanshihiisa iyo inaan u mahad celino. Abshir Colonel ma mahadsan tahay walaal ku iloomayno Soomaalida waa ku xasuusan tahay waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu hambaliyo shaqaalaha idaacadda raadiyo Muqdisho iyo TV ku soo biiray 6 sano ka hor aan leeyahay hambaliyo muddadii aad shaqaynayseen runtii wax badan yaad ku soo biiriseen shacabka Soomaaliyeed dhinac walbaba anigu runtii waxaan oran karaa oo aan ka hadli karaa laba marxaladood uu soo maray raadiyo Muqdisho marxalad oo marxaladii la sheegay oo dadkii ugu horeeyay ay tilmaameen 60kii anigu aan xasuusto intii dambe 70-yadii 80-yadii oo raadiyo Muqdisho uu ahaa aalada kaliya dadka xiriirisa oo qof walba u dhageysto
oo dadka laga hanuuniyo oo wax laga barto oo wadaniyadda iyo midnimada runtii horumarisa ilaa haddana wixii waa yaalaan oo waxaa markhaati ah markii aan imid oo lay magacaabay oo noqday prime ministerka 2010kii 2010kii idaacadda ugu horreysay markaan daaray kulli programyadii aan dhegaysan jiray 60meeyadii 70meeyadii iyo 80meeyadii sidooda uga baxayeen iyo heesihii hore qaraamiga ahaa iyo heesihii wadaniga ahaa marka waxaa laakiin intaas ii weheliyey muddadaas hore waxay ahayd muddo wanaagsan oo haddee waddanku nabad ahaa oo dadku qalbi wanaagsanaayeen oo dee dalku uu aad isugu furnaa laakiin markaan dambe marxalada dambe aan ku soo beegmay waxay ahayd marxalad aad iyo aad u adag oo duruufo aad u adag ay ka jireen khaasatan ay haysteen duruufahaas dadkii howlwadeennada ahaa oo idaacadda tafatirayaasha ahaa ama wariyaasha ahaa oo ka soo muuqanaya codkooda ama la dhegaysanaya oo runtii qaatay sacrifice qaarkoodna ay dhinteen allah u naxariisto oo aan hadda u ducaynay oo faataxda u marnay qaarkoodna ay dalka ka tageen bacdamaa ay u adkaysan waayeen dhibka qaar kalena waa idinka oo u dhabar adeegay oo u joogay oo weli hadda u dagaalaya in dalkaani uu nabad uu dib ugu soo noqdo waana ku mahadsantihiin hawshaas marxaladaas marka waxay ahayd marxalad aad iyo aad u adag waxaan xasuustaa dhalinyarada uu hadda sheegay guddoomiyaha waa runtiis idaacadda dhalinyarada waxaan u dhisi jirnay moralka waa la hadli jirnay waa geesinimo gelin jirnay waa ka warqabnay wax alla waxay qabaan oo dhibaato ah waa ka dhegaysan jirnay maxaa yeelay waxay ahaayeen aalad loo baahan yahay oo qayb ka ah la dagaalanka xagjirka weliba waxay oran jireen waxaan hadda aysan dadka dhihi karin khawaariij ay oran jireen macnaheedu wuxuu ahaa dagaal afka ah oo ka dhib badan ama ka adag kan xabadda ah maxaa yeelay propagandada waxaa la yidhahdaa waa qayb ka mid ah dagaalka waxay si geesinimo ah marka oo dadnimo leh oo farsamo leh ay ula dagaaleen sidii shabaab aysan shacabka nooga qaadan lahayn waxay ku dadaaleen in shacabka iyo dawladda isku soo dhaweeyaan waa markii ugu horreysay ay shacabka iyo dawladdu ay isla jaan qaadaan oo si wada jira ay ula dagaalaan shabaab ma aha shabaab wixii ka adkaaday xabad keliya ma ahayn shabaab waxaa ka adkaaday shacabka Soomaaliyeed ka adkaaday oo garab istaagay dawladdoodii taasna waxaa suuro geliyay dhalinyaradii markaas joogay oo qaarkood ay dhinteen qaarkood ay halkan la joogaan jaytay oo kale iyo qaarkoodna aan aqaano oo ay dalka ka carareen si geesinimo leh ay ula dagaaleen maxaa yeelay idaacadda shabaabku waxay ahayd idaacad very effective ah markaas hadda ma dhagaysto laakiin waagaas waa la socday oo waxaan isku fiirinay quality-ga kuweena iyo kuwooda marka waxaas igu daraa oo xasuustaa inay yiraahdeen annagu sidaan kuma shaqayn karno maxaa yeelay nafteena khatar ay ku jirtaa waxaan u baahannahay in la siiyo bistoolooyin haddee nin madaxweyne nin prime minister ah oo bistoolo siinaya dee wax sahla ma ah laakiin waxaan arkay duruufta ay ku jireen inay ahayd mid dhaba marka sidaas guddoomiye iyo si ka mid ah yaa keentay xiriirka markaas aan lahayn waxaan rabaa halkan marka inaan ka recognize garayo aan aqoonsanno wasiirkii markaas joogay oo ahaa faafinta cabdikariin jaamac khayr allah siiyo hawl aad u weyn oo runtii dhiirigelin ah iyo isna contributionkiisa ka geystay qayb ahaan ka geystay maxaa yeelay wuxuu bilaabay oo aan bilaabnay inaan siino inaan dhaqaaleyno wiilashaas waxaan bilaabnay inaan u samayno miis ay raashin ku cunaan si aysan dibadda u aadin iyo weliba meel ay seexdaan bacdama ay ahaayeen target markaan intaas aan ku guulaysanay oo iyaguna ay hawshaas qabteen raadi muqdisho tiimkii ka shaqaynayay oo aan ku guulaysanay inaan muddo kooban aan shabaabka uga bixino dalka waxaan aragnay inay tahay muhiim inaan ku darno muuqaal oo ahaa Somali National TV oo aan abaabulnay oo ilaa hadda shaqeeyo oo quality-giisu aad iyo aad u fiican yahay
taasna iyada naftigeeda credit waxaan ku siinayaa cabdikariim jaamac oo aan ka wada shaqeynay bacdama uu ahaa wasiirka markaas joogay waxaa intaas dheer oo annagu dee markii toddobaatameeyadii iyo siddeetameeyadii aan soo koraynay qayb ka ahaa abaabulka iyo kicinta dadka gobollada waa beri heesahoodii waddaniyada ahaa iyo gabayadii iyo wixii la mid ahaa waxaan raadinay marka in aan raadinno kooxda inaan raadinno oo aan isku abaabulno oo aan dib u soo celinno oo aan mushaaharo bilowno oo aan joogtoonno weliba qalab u iibinno iyagoo dee markaasi sacboolay ahaa oon waxba haysan markaasay ahayd markii ay dib u soo noolaadeen kooxdii gobollada waa beri iyaguna qayb ka ahaa abaabulka iyo kicinta shacabka markaasi muhiimka noo ahaa inaan shabaabka ka hor keenno maanta marka iyo dardargelinta loo baahan yahay waxaan ku jirnaa dalku wuxuu ku jiraa dagaal markaas xabaddu waxay ku soo dhacaysay oo aan ka hadlayo meeshaanay ku soo dhacaysay xabad oo dad badan oo shaqaalaha dawladda ahaa lagu dhaawacayey ama lagu dilaayey madaxtooyada dhexdeeda dagaalkii markaas dadkaan u geyni oo dadka waa u muujinay dalku inuu dagaal ku jiro hadda waxaa loo baahan yahay marka inaan xamaasaddii soo celinno inaan dardargelinno shaqadii markaas aan shabaab uga adkaanay oo magaaladan dhibka badan oo aad og tihiin house to house lagu dagaalayay inaan soo celinno xamaasaddii dadka inaan soo celinno waddaniyadii inaan soo celinno isku xirnaanshihii dawladda iyo shacabka inaan soo celinno hawshaasna waxaa loo baahan yahay inaad brograamyo cusub aad samaysaan brograamyo cusub oo looga sheekeynayo waxay shabaab yihiin sidii waagii aad yeesheen oo kale maxaa yeele markaas waxaan samaynay brograam shabaab waxay yihiin looga hadlaayo iyagu waxay sheeganayeen dee magacyaday noo bixiyaan waa taqaanaan annagana waxaan bilownay dadka ka soo fakada inaan brograam u samayno oo aan ka hadalsiino oo ay ka hadlaan dhaqanka shabaabka ay leeyihiin oo dhaqanka ay leeyihiin uusan ahayn dhaqan islaam uusan ahayn oo xitaa mararka qaarkood dadkii ka soo fakaday noo sheegeen inaysan tukan oo xitaa ay sameeyaan waxyaabo lagu eedeeyo ciidamadeenna bacdamaa ay ahaayeen dad aad iyo aad dhinac walba uga xun dadkii inaan barno marka shabaabka waxay yihiin marka oo diinta ay sheeganayaan aysan ahayn diinta islaamka waxay u taagan yihiin ay tahay dad inay laayaan iyo hanti inay burburiyaan hadda waxaa loo baahan yahay marka brograamyadii in la soo celiyo oo laga hadlo waxa ay sameeyeen weliba tii hadda ugu dambaysay oo ay naga laayeen 400 dad gaaraya oo aan waxba galabsan 400 dad oo kor u dhaafayeen ay ku dhaawacmeen iyo tii ka dambaysay oo naasa hablood 2 ay dhibaatada ku geysteen culummada naftigooda door fiican ay ka soo qaateen waagaas haddana waa nala shaqeynayaan culummada waa nala shaqeynayaan in la siiyo brograamyo la siiyo oo ay uga hadlaan shabaab in aysan ahayn waxa ay u dagaalayaan diin inaysan ahayn maxaa yeele diintu ma ogola qof bini aadan in la dilo ma ogola laakiin inay xalaalaysteen inay laayeen shacabkeenna inay laayeen carruurteenna inay laayeen gabdhaheennii inay laayeen duqooydeennii inay laayeen culummadeennii in loo sheego dadka dib maxaan ku rahdaa dib loo xasuusiyo maalin walba waxay sameeyeen haddii kale waa la iska iloobi wixii dhacay bil ka hor waa la iska iloobi marka waxaa la rabaa dadka in loogu soo celceliyo wixii dhacay dadka loogu soo celiyo dadkii dhibaatadu gaartay ilmihii agoonta ahayd laga hadal siiyo waalidiintii ilmahooda ku waayey laga hadal siiyo mar walba dadka loo xasuusiyo maxaa yeele waa qayb ka mid a propagandada haddaanan saas loola dagaalin iyagu wakti ma luus garanayaan wakti yar ma khasaaranayaan walaalayaal waxaan leeyahay hawshii aad soo qabateen muddooyinkii aad shaqaynayseen oo duruufaha aad ku shaqaynayseen ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ajri xasanaa idinka siiyo waxaad u shaqayseen dalkiinnii waxaad u shaqayseen dadkiinnii waxaad u shaqayseen waddankiinni aad u shaqayseen haddaad dhimataanna jannadaad gelaysaan haddaad nooshihiinna sharaf iyo xurmo iyo karaamaad ku noolaanaysaan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu